muwaadin ma ku soo gaartay fariinta madaxweynaha dalkeena Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee ah ka qayb qaadashada dhiraynta dalka. taariikhda markay ku beegnayd Oktoobar 21 bisha 2022 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo daahfuray qorshaha qaran ee Soomaaliyada cagaaran oo lagu beerayo guud ahaan dalkeena Soomaaliya 10 milyan oo geed. Madaxweynaha ayaa tilmaamay ahmiyadda dhirtu u leedahay dalkeena oo abaaro soo noqnoqday ay aafeeyeen, saameyn xoogganna ku yeelatay nolosha dadka, xoolaha aan dhaqano iyo deegaankaba. Inta aan la gaarin sanadda 2023 ayuu madaxweynaha faray maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelada cimilada in magaalada Muqdisho lagu beero 100,000 oo geed, taasoo qayb ka ah qorshahan qaran ee guud ahaan dalka lagu beerayo 10 milyan oo geed. Haddaba daawada ila daabo muuqaal kooban oo uu madaxweynaha kaga hadlayo qorshahan qaran ee lagu dhiraynayo guud ahaan dalka. meelaan geeda lahayn malab kama samayso, meelaan geeda lahayn neef caanala kama yimaado. Soomaaliya waxaa hadaf noo ah Soomaaliya guud ahaan in aan 10 milyan oo geed inaan Soomaaliya ku beerno muddada kooban ee sanadka 2022 nooga dhiman magaalada Muqdisho 100,000 oo geed in la beeraan rabnaa. war qof kastoo Soomaali ahow geed aad geed beer 2 beer 3 beer usbuuciiba geed aad beeri kartaa ama usbuuciiba 2 geed 3 geed ayaad beeri kartaa, wax ka celinaya ma jiraan. geedaha dalkeena ee dabeecadeena iyo cimiladeena la qabsan karana waa inaan kuwaas aan xoog saarnaa. dalkan ugaartii joogi jirta maanta waxa ka jooga waa yartahay. waxaan rabnaa haddii aan beerno oon dalka dhirayno xoolahaas oo dhan waa soo noqonayaan. shalay ma wada dhiman, waa naga guureen, waa guureen. dib u dhiska dowladnimada waa inay barbar socotaa dib u cagaarinta deegaanka iyo kobcinta wacyiga dadweynaha ee ku aadan daryeelka deegaanka. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa faray hay-adaha dowladda inay hormuud u noqdaan qorshahan oo ay dhireeyaan xarumaha ay ku shaqeeyaan. sidoo kale waxa uu ugu baaqay habeenka Soomaaliyeed oo taariikh ahaan door wanaagsan ka qaata daryeelka deegaanka inay guryaha iyo goobaha ganacsiga ay ku talaalaan geedaha waxtarka u leh deegaanka oo ay dowladda diyaarisay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faray shacabka Soomaaliyeed inay joojiyaan jaridda dhirta, sidoo kale aanay wanaagsanayn in laga ganacsado geedaha, taasoo sababi karta roob la'aan iyo abaaro soo noqnoqda oo saameeya dadkeena iyo xoolaha aan dhaqano.